Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Soo dhowaada saaxiibayaal. Waxaan halkan idinkula wadaagaa wararka caalamka ugu waaweyn uguna saameynta badan ee markaasi taagan qaar ka mid a. Haddaba wararka u dambeeyay ee soo baxaya waxa ay sheegayaan in dowladda Pakistan ay bixinayso dadaallo aad u fara badan oo lagu badbaadinayo in wada hadalladu ay dhacaan oo aysan arrintu fashil iyo colaad aysan ku dhammaanin. Waxay bixinayaan dadaaladooda ugu dambeeyay ayagoona dib ula xiriiray Iiraaniyiinta iskuna dayaya inay ku qanciyaan inay shirka kasoo qayb galaan. Shirkaasi oo qorshuhu ahaa inuu maanta dhaco, laakiin diidmo ka timid Iiraan aawadiis dib u dhacay oo rajo laga qabo in wafdi ka socda Iiraaniyiintu mar kaleeto ay dib u yimaadaan magaalada caasimadda ah ee Islamabad ee dalkaasi Pakistan. Pakistan waxa ay sameynaysaa dadaallo xoogan iyo xiriiro joogta ah oo ay la sameynayso labada dhinac. Ugu badanna waxaa lagu bixinayaa Iiraaniyiinta oo Pakistan ay ka codsanayso in fursad la siiyo wada hadallada oo aanan la diidin miiska lasugu yimaado. Sidoo kale Mareykanka ayay la xiriireen. Maanta wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan waxa uu Islamabad kula kulmay safiirka Iiraan u fadhiya Islamabad asigoona arrimahaasi kala hadlay. Safiirka ayaana sidoo kaleeto dowladda Pakistan uga mahad celiyay sida weyn ee dadaal ugu bixinayso in arrintu ay nabad kusoo dhammaato wada hadallada iyo diblomaasiyaddana wax lagu xalliyo. Sidoo kaleeto isla wasiirka arrimaha guduhu wuxuu maanta la kulmay safiirka Mareykanka iyo saraakiil Mareykanka ka socoto asigoo la wadaagay sida ay Pakistan ugu diyaar garowday inay ammaanka wufuudda labada dhinac ka kala imaanayso u sugto. Marka warar dambe oo hadda soo baxayo waxay ayaguna ay sheegayaan in Pakistaaniyiintu ay ku qanciyeen Iiraan inay yimaadaan wada hadallada oo la filayo berrito wafdi ka socda dowladda Iiraan inuu soo gaaro caasimadda Pakistan ee Islamabad. Maanta iyo shalay mar ayay arrintu ku dhawaatay inay faraha ka baxdo kadib markii si weyn Iiraaniyiintu uga caroodeen tillaabooyinka oo Mareykanku uu qaaday kadib markii markab ayagu ay lahaayeen oo ganacsi siday kuteynaro fara badan kuna soo dhawaa dekedahooda ay ciidamada Mareykanka ee halkaasi xayiraada ku hayo weerareen oo ay la wareegeen. Waxaana xigay kadib shaqaaqo yar oo dhex martay ciidamada Mareykanka ee badda ku sugan iyo ilaalada kacaanka Iiraaniyiinta oo diyaarado aan duuliyo lahayn ku weeraray maraakiibta Mareykanka ayagoo ka falcelinayo tillaabada Mareykanka uu qaaday. Xiisadu sidaasi isku bedelaysaa oo marna dhinaca rajada iyo nabadda ayaa soo xoogeysanaysa, marka kalena waa sida shalay oo kaleeto oo khilaafaadka iyo ismariwaaga ayaa hawada galayo. Maantada horeeto Pakistan Iiraan aad ayay rajo xumo u muujisay ayagoo sheegay inay Mareykanku yihiin dad aan la aamini karin oo xatee soo qaatay gocasho horeeto oo ayagoo wada hadallo kula jiraan ay Mareykanku weerareen oo dagaalka markii lagu bilaabayay ay wada hadallo u socdeen. Marka waxay dhaheen Mareykanka niyad wanaag kama muuqato tillaabooyinka uu ku dhaqmaayo oo cunaqabateynta iyo xayiraadda ugu horeyso iyo kuwa horeeto markii la isku geeyana waxaa noo muuqatay inuusan Mareykanku diyaar u ahayn in wada hadallo nabad ah la gaaro ee waxooda yihiin waqti lumis iyo khayaano iyo wax aan la fahmi karin. Marka waxaa la leeyahay hadda rajadu waa soo noqotay dadaalada ay dowladda Pakistan bixinaysa aawadeed, waxaana rajo laga qabaa in mar kaleeto labada wafdi ay dib u kulmaan oo wada hadalladii ay furmaan. La arki doono wuxuu kusoo kordho. Waa isla joognaa saaxiibayaal. Soo dhowaada. Waxaan ka codsanayaa inaad page-keena follow gareysaan oo aad soo raacdaan asxaabtiina aad la wadaagtaan aragtidiina aad ka dhiibataan. Mahadsanidin mar kaleeto. Assalaamu calaykum.